safiirka dowladda Somaliya u fadhiya dalkani Kenya Maxamed Cali Nuur Ameeruk oo maanta shir jiraayad ku qabtay gudaha safaaradda ee ka warbixiyay dad Soomaaliyeed oo laga iibiyay fiisa been abuur ah una socday inay soo gutaan waajibaadkoodii xajka kuwaas oo dhawaan lagu xiray ayagoo ka ambabaxay gegida diyaaradaha Joma Kenyata. safiirka ayaa xuseen dadkii xidhnaa lagu soo daayay si damaanad oo ay iska kaashadeen safaaradii ehladii dadkaasi. saddex maalmood ka hor waxaa lagu qabtay airportka magaalada Nairobi ee Joma Kenyata International Airport 23 qofood oo xujaay ahaayeen oo u socday inay soo xajiyaan. dadkaasna waxay u badnaayeen dad odayaal waayeel ah soo jira dumar iyo ragba. waxaa lagu soo eedeeyay oo dowladda Kenya ay ku soo eedeysay in ay baasaboorada wateen oo Soomaaliga ah lagu soo mataqaana lane timbro ama sharciga Kenya lagu joogo oo falsa ama la been abuuray. anaga safaarad ahaan arintii waa baarnay waxaa hadda soo ogaanay in dadka masaakiinta ah xujayda ah ay noo sheegeen in baasaboorada ay u dhiibteen dad mataqaana agencies oo dhahay anaga ay sameeyaan sharci oo Kenya ah. dadkaas oo muqallasiin ahaayeen lacag ka qaatay been u sheegay marka dadka shaqeeyo maxkamadii waxaa lagu xukumay in inta laga baarayo arinta lagu soo deeyo maxaa la beel oo lacag dhigo hadeertaan qaraabadooda iyo safaaradda ay ku jirta. ugu dambeyntii safiirka ayaa ku tilmaamay in kuwa fiisaha been abuurka ka iibiyay dadka waayeelka ah ee doonayay inay soo xajiyaan inay la mid yihiin kuwa dadka tahriibiye ku laaya badaha iyo saxaraha. sidoo kalena sheegay in heer maxkamadeed la gaari doonaan wixii ka dambeeyay falka foosho xun. anaga safaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqeyn doono dowladda Kenya arintaas cid ka dambeysay oo mataqaana dambigaas galay oo dambiilayaashaas ah oo muqallasiinta ah in aan dabagali doono lana soo qaban doono sababtoo ah waa wax la yaabo waaye. dad ka xataa qaar waxaa ku jiray dad mataqaana xiriiq qaxootiga ku jiray oo odayaal ah oo lacago aruursanayo oo qaraabadooda u soo aruuriyeen oo intaas sanadood sugayay inay soo xajiyaan haddana inay intay xajka aadi lahaayeen oo soo ceesan lahaayeen inay ku jiraan xabsi waa wax la yaabo waaye oo dambi ah oo qalad ah. marka arintaasna kuwii waxaa sameeyayna waxaan ballan qaadaynaa in lagu daba taagan yahay lana soo qaban doono lasoo taagi doono maxkamadda hadduu dheeraado. waxay la mid yihiin kuwa saasoo kale iyagana oo sameeya human traffic ama hadda masaakiinta hadda ku dhimatay mataqaana ku dhintay xeebaha oo lacagta ka qaataan dhahaan waxaan diraynaa Yurub iyo meelahaasna been u sheegay kuwaas kale waaye. Abdi Ibrahim Cali Dheere, Cable TV, Nairobi.